الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ذنوب تلقى waxaa ugu culus shirkiga kadibna waxaa soo raaca dhiig la daadiyo oo xaq darro lagu daadiyo. sidaasi waa sida ay yiraahdeen a'immada Imaam Shaafici iyo ninka la yiraahdo Ibn Hazmi ayagoo ka qaadanaya Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dambi ma jiro ka weyn gaalnimo kadib laba qodob: salaad kas looga tago ilaa waqtigeedii dhabcado oo buuxo, iyo naf mu'min ah oo kas loo diro xaq darrana lagu dilo. bacda shirki dambi ka weyn ma jiro. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala meel cad buu masalada saaray. goodiga ugu adag ee qur-aanka ku soo aroorayna wuu ku sheegay: ruuxii ruux mu'mina dilo kas u dila abaalkiisu waa jahannama, waana ku waarayaa. allana waa u cadhooday, waana lacnaday, cadaab weynna waa u diyaariyey. nabigeennana sal alla alay wasalam wuxuu yidhi: ruuxa mu'minka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin. dhiig xaaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhyamayaa, waasacnimadii buu waayayaa, xaalad khatara iyo cidhiidhi buu gelayaa xagga diinta. arrintuna waxa weeye sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, hal ruux oo mu'minoo xaqdarro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oy zuusho. adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do baa ilaahay kala fudud hal ruuxoo mu'mina dilkiisa. maxaa yeelay mu'minku waa ka xaq weyn yahay, ilaahay agtiisana waa ka karaamo badan yahay adduunyada oo dhan. xataa kacbada, sida xadiidka nebiga ku sugan sal alla alay wasalam, xataa kacbada waxaa ka qiimo badan ruuxa mu'minka ah. maanta kacbo la dumiyey, nin kacbada tegay oo dumiyey xaalkiisu inalama fududaadeen. laakiin ninka boqolka naf ee mu'mina isu maray cagta mariyey warkiisu waa fudud yahay. allah tabaaraka wa tacaala naf mu'minada agtiisa kuma fududa. malaa'igta markuu rabbi ku yidhi waxaan abuurayaa dhulka, waxaan ku abuurayaa addoommo kuway ah oo u kala dambeeyo maamula ibni aadamka laga hadlayaa, ayay malaa'igtu waxay yidhaahdeen: atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa. rabbiyow, dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiigga daadisa? malaa'igtu u fiirso, dunuubtii kaleo dhan mayna sheegin, laakiin ibni aadam waxay ku eedaysay oy ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye see baad dhulka u keenaysa? ma waxaasaad rabbiyow dhulka keeni dhiig la daadiyo? sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horreeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiigga u horreeya. intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin, dhiigga ugu horeeya awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati dimaa. dhiigguma sahlana. ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanee qalbigiisa wax yaroo iimaana ku jiro, ruux muslim ah dilkiisa xataa kelima niskeed, xataa hal xaraf kagama qayb qaato. waa ka cararaa, waa ka ixtiraasaa, waa iska ilaaliyaa, waa iska jiraa, waa ka dhowrsadaa. le'anna waxa weeyaan waa meel halis ah, ruux galayna kama baxo. sida aharka cabdilaahi bni cumar uu tilmaamayo, ruux galay kama baxo, kamana bixi karo. bal waxaa dhacaysa marka aad dhiig daadiso, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiiggaasi inuu kuu jiido dhiigag fara badan, oy markaa kuu fududaato inaad dhiigga cabto, ood bada dhiig ajiidho, oodan u aaba yeelin waxaad samaynayso. waxay ka dhalatay dembi aad gashay nataa'ijtiisa waay.
arintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doonaa soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa taala maxaad samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa taala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها دعية وواحد لوجنح وأنا واحد لقى مرجوده وأنا واحد لقى يقصده حالته سواحي سي أذكته مركز جرائم تنوع عصر لجوس سماينا يو مجع جهاد مركز لجوس سماينا يو مجع دين إلهي بالله نصرينا يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaas la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dhalika mafasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma hawaase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل أريه سورة نوعية بيوتالله مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناق يقول له قدوني أبدا أبدا سورة قبيحة وحد سوغانيسان وحد دعيميه ويصهر مرتي تاريخ ذا مركز ديب لو آخريو فكر كان منحرف كأه إن ديقوا أبيالينين meel alla meeshu arkaba dhiig cabay daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrida kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka aha ragii islaamka qaadir ragii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid buu madaxa ku dhuftay sagii nin kale Ali markuu dhacay ayuu wuxuu ku yiri ku dul akhriya Ali oo yaala wuxuu yiri Ali xukumka Ilaahay baa iskale aduguna malihid saaxiibadana male xukumka Ilaahay baa iskale muxuu ka wadaa kitaabkii Ilaahay baad ka leexatay oo rag baad ra'yigooda qaadatay xukumka Ilaahay baa iskale annaguna waxaan ku dilaynaa diin rabbi inaan soo celino kitaab Ilaahayna dhulka ku xukun xukumka Ilaahay baa iskale adiga raggaagu malihidin caliyow markaasuu akhriyay wa min an-nasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardati Allah dadka waxa kamida ruux naftiisa Ilaahay ka gaday ridihiisa isagoo raadinay waxaan ku dilay caliyow jannaan kugu rabaa ridaan Ilaahay kaga doonaya waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo Allahu akbar ma Ali baa dhiigiisa janno lagu gali ma Ali baa dhiigiisa kitaab Ilaahay lagu koryeeli ma Ali ibn Abi Talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir ajiib ah markaas mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsana aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duridda sameeyay Ali duray taqi Ilaahay ka baqayu aha
durida iyo dhibka uu geystayna jannu ku raadinayay ilaahayna ridu kaga helay marar badan baan xusuusan buuri ninkii nooca ahaa markaas waxaan leeyahay buuri ilaahay agtiisa adoomada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa ya kariim ma absha'a suura aadu falxuwa wama dhalika ragba janna ku raadsanay Ali ibn Abi Talib dilkiisa hadii janna lagu raadsanayay Soomaali layntooda in janna lagu raadsado maxaad ula yaabi marka Ali baba janna lagu doontay fikirku mar haduu qalloocdo oo uu jidka ka baydo halis waay waxaan idin leeyahay waxa noocaas oo kala in diin loo tiiriyo waa khalad in kitaab ilaahi loo tiiriyo waa khalad in jihad magaciisa la siiyo waa khalad in la taageero waa khalad in laga bari noqdana waa waajib nabi maxamed sallallahu rabbi wa salaamu alayhi saxaabigiisa Khalid ibn al-Walid oo intuu ta'wiil sameeyay dad si khalada u dilay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ilahu bari baan ka ahay kumana jiro kamidna may Khalid wuxuu sameeyay bari baan ka ahay Khalid wuu ijtihaaday dadaal bayna ka ahay khayr doon buu ahaa naam maanta ina tunka saarato difaacdo oo waxa noocaas oo kala u doodo wala tujadil 'ani alladhina yahtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima waxa noocaas oo kala looma doodo lamana difaaco waa laga bari noqdaa haddaad ka bari noqon weydo kula qumanaato waxaad ogaanaysaa hal qodob nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gafka marka la sameeyo oo dhulka lagu sameeyo ninka goobta jooga ee nacab ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raali ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joogahayo sameeyay buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaas oo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dambi baatiin ka soo amrayna idin la dambi way midka sheegtayna la dambi way waxa noocaas oo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaas oo kale ina tunka saaratood ku faanto aaway iimaanki aaway diinti aaway akhlaaqdi insaanka caadiga ah baan sheegan karay ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku socono meel sahlan ma inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhalinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaaga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idin la gelin adoo jaahilan waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yiraahdo khalqiga Allah jannaduna waa iridda adiga janno waxa idin dhaxaya naftu inay ka dhacdo la oo aad haliishood iyo cadood jannada ku orado oo ay ku timaado wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun waxaad filanaysaa waxaan uu kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay janna meesha taala naar baa taala xisaab baa taala khalaa'iq aad laysay baa meesha taala ma waxa ku shafeecay hebel baa yam ma waxa wax ku daraysa ururkan ka tirsana ma waxa wax ku taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba ku tarimayso warkaadsada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa taala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍallahu ma'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة